ayaa ka soo baxaya rag hubaysan oo dil ka geystay magaalada Muqdisho iyadoo la sameeyo howlgallo lagu baadigoobayo raggaasi. wariyahayaga Cabdullaahi Cismaan Cadaani ayaa warbixintaasi soo jeedinaya. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil maanta wiil dhalinyaro ah lagu geystay agagaarka isgooska Sinai gaar ahaan dhinaca degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. dilka ayaa waxaa fuliyay nin ku hubeysnaa AK47 kaas oo la sheegay inuusan wadan wax darees ah. mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in marxuumka uu watay mootada nooca loo yaqaano Fekonta. sidoo kale waxa uu sheegay ninkii geystay dilkaas uu goobta ka baxsaday kadibna ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo baaritaano ka sameeyay halkaasi. marka ugu horeyso abaarasaakay barqadii saacadu markay ahayd 10 oo qadar daqiiqada ayaa waxaan maqalnay dhawaq rasaasa oo ka dhacaysa inta u dhaxayso isgoysyada afarta gardiina iyo isgoyska Sinai meel u dhow isgoyska Sinai. sida inay qabanayaan walaalo waxay ahayd laba mooto lagu leeyahay oo Fekon mootada loo yaqaano oo kasoo fursadeen dhinaca afarta gardiino markay mooto Sinai soo dhaafeen oo isgoyska Sinai meel u dhowna si kadibna rasaas halkaas ku dhex martay. labadaasi midkoodna oo halkaasi xabad lagu dhuftay oo kii wax dilayna inuu meesha ka cararay ayaan ognahay. daqiiqado kadibna waxaa meesha soo gaaray ciidamo ka tirsan dawladda haba ugu horeeyaan kuwa jagboontiga kule isgooska Sinai oo halkaas baaritaano ka sameeyay haddii ahaayeen degmooyinka dhinaca Boondheere iyo weliba dhinaca Yaaqshid maadaama laamiga ay wax ka dhaceen oo u dhaxeeya labadaas degmo. waa dilkii labaad oo isla maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo saaka kooxaha hubeysan ee askari ka tirsanaa ciidamada dawladda ay ku toogteen qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa kormeer ku tagay tiyaatarka qaranka oo dib u dhiskiisu uu marayo heerkii ugu dambeeyay. waxa uuna ra'iisul wasaaruhu la kulmay mas'uuliyiinta tiyaatarkaasi. wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka waramaya. Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo weeliyo maraya tiyaatarka qaranka Maxamed Abuukar Maada mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tagay dhismaha tiyaatarka qaranka oo lagu dhisayo wallahi isxilqaan xilligan marayo dhismihiisa heer gabagaba ah. ra'iisul wasaare Khayre ayaa kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay tiyaatarka qaranka waxaana ku weelinayay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u mahad celiyay shaqaalaha xilligan ku hoolan dib u dhiskii dib u dayactirka tiyaatarka qaranka waxaana ku booriyay in xilligan meel hagaagsan ay marayso muhiimna ay tahay in laga wada shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dib u dhiska goobaha danta guud. Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale muujiyay in loo baahan yahay in gabi ahaanba la soo gabagabeeyo dhismooyinka kala duwan oo lagu wado goobaha taariikhiga ee dalka ku yaalo ay qayb ka yihiin maktabadda qaranka iyo madxafka qaranka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa bogaadiyay injineerada xilligan ku hoolan howshan dib u dayactirka ah. dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaraddeeda warfaafinta uu wasiirku ka yahay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa kol hore sheegay in dhamaadka bisha December ee sanadkan la furi doono dhismaha tiyaatarka qaranka oo kol hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhagax dhigay dib u dayactir lagu sameynayo iyadoo la kaashanayo barnaamijka wallahi isxilqaan oo ah olole dadweyne dawladuna ay hogaaminayso. sidoo kale wallahi isxilqaan waxaa lagu dhisayaa goobo ay ka mid yihiin madxafka qaranka maktabadda qaranka iyo garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. aad u mahadsan yahay wariyahayaga dawladda Jarmalka ayaa malaayiin dollar ugu deeqday dawladda Soomaaliya taasoo wax looga qabanayo arrimo badan oo dalka ka jira sida amniga iyo arrimaha bulshada. wariyahayaga Nafisa Xuseen Cabdi ayaa warbixintaasi eegaysa. dawladda Jarmalka ayaa dawladda Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 73 milyan oo dollarka Mareykanka ah.
danjiraha jarmalka u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegtay in lacagtaasi ay ku deeqeen ay tahay mid lagu taageerayo horumarinta hay'adaha maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. deeqdan ayay danjiraha jarmalka kaga dhawaaqday munaasabad lagu xuseeyay 30 sano guuradii ka soo wareegtay midoogii Jarmalkii galbeed iyo Jarmalkii bari ee Muqdisho lagu qabtay. danjiraha jarmalka ayaa sheegtay in dalkeeda uu xoojinayo xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya ay 2 sano ee soo socota bixin doonaan lacagtaasi, iyadoo intaasi ku dartay inay lacagahani ku taageerayaan hay'adaha maaliyadda Soomaaliya si fursado loogu abuuro dhalinyarada una helaan tababaro xirfado cusub iyo dhismaha wadooyinka dalka. ugu dambeyn danjira Anet Gunter ayaa soo dhaweysay horumar ay sheegtay inay dawladdu ka sameysay dhismaha hay'adaha dawliga ah ee dalka. aad u mahadsan tahay wariyahayaga Nafiso Xuseen Cabdi. shaqo ka socotay garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ayaa istaagtay iyadoo mas'uul ka tirsan maamulkaasina uu ku wajahnaa degmada Jallaqsina uu ku xayiran yahay magaalada Beledweyne. dhinaca kale khilaaf ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa ka taagan degmadaasi. wariyahayaga Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa warbixinadaasi la socday. wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in hakad uu ku jiro isku socodkii garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne. garoonka ayaa lagu soo waramayaa in howlihiisii ay hakad u galeen roobab mahiigaan ah oo saacadihii la soo dhaafay ka da'ay gobolka Hiiraan, taasna ay keentay in gabi ahaanba ay istaagaan howlihii duulimaadka sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo Shabeelle ay la xiriirtay ayaa sidoo kale waxa ay noo xaqiijiyeen in maanta hakad uu ku yimid safar uu ku tagi lahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo wafdi uu hogaaminayo degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan. dhinaca kale wararka aanu ka helayno degmada Buulaburde ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Buulaburde Cabdicasiis Duurow. gudoomiye Duurow ayaa ka biyadiidan warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle oo la sheegay in xilka looga qaaday isaga. warar hoose oo ay Shabeelle ka heshay magaalada Buulaburdena waxa ay ku waramayaan in ciidamo u gaar ah gudoomiye Duurow oo u abaabulan qaab qabiil in ay ku sugan yihiin magaalada Buulaburde, waxaana lagu soo waramayaa in xiisadda ay cirka isku sii shareertay. markana haddii aan aadno gobolada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Galmudug, kulamo looga hadlayo sida ay u dhici karto ee ugu habboon doorashada maamulkaasi ayaa ka socday deegaano ka tirsan Galmudug. dhinaca kale ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa aad u adkeeyay ammaanka Dhuusamareeb oo ah xarunta Galmudug oo ay ka dhici doonto doorashada dhawaan la qaban doono. wariyahayaga Cali oo ku sugan Gaalkacyo ayaa warbixintaasi soo diray. waxaa si weyn loogu diyaar garoobayaa doorashada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. magaalooyinka waaweyn ee gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaa ka soconaya kulamo kala duwan oo looga cariisanayo soo xulitaanka baarlamaanka cusub ee Galmudug. musharaxiin doonaya inay ka mid noqdaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug ayaa kulamo kala duwan waxa ay ka wadaan deegaanada Galmudug si ay bulshada ugu qanciyaan inay deegaanka ku matalaan baarlamaanka cusub ee Galmudug. odayaasha dhaqanka deegaanada Galmudug ayaa ka cariisanaya doorka ay ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. xisbiyada ka jira dalku waxa ay qayb ka yihiin ololaha siyaasadeed ee ka soconaya deegaanada Galmudug, iyadoo xildhibaanada kala duwan ee iminka xilalka raadinayana ay qaarkood ka tirsan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya. musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug sawiraantooda waxaa la suray wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka gobolada Mudug iyo Galgaduud, taasoo si weyn u muujinaysa in doorashada deegaanada Galmudug ay leedahay xiise gooniya. dadaalada xoogan ee loogu jiro doorashada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ee iminka ka soconaya gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa noqday mid hadal hayn weyn ku salaysan maadaama shacabka deegaanada Galmudug ay sugayaan isbedel siyaasadeed oo ku yimaada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. dhanka kale tan ammaanka magaalooyinka waaweyn ee Galmudug ayaa si weyn loo adkeeyay, iyadoona ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ay iska kaashanayaan.
magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa ciidamada amnigu waxaa iminka ay laba jibaaraan howlgalada amniga ay ku xaqiijinayaan si magaaladaasi ay u noqoto mid nabdoon maadaama ay halkaas imaanayaan wafuud kala duwan oo ka qaybgalaya doorashada deegaanada dowlad goboleedka galmudug isla markaasna madaxda dowladda Soomaaliya ay halkaasi tagi doonaan markii la gaaro xilliga doorashada oo iminka u diyaar garowgeedii u soconayo bulshada qaybaha kala duwan ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyay sida iminka ay u socoto dadaalada xoogan ee lagu doonayo in lagu soo dhiso galmudug loo dhan yahay iyadoo odayaasha dhaqanka deegaanada galmudugna ay u diyaar garoowayaan soo xulitaanka baarlamaanka cusub ee galmudug oo iminka la sugayo marka la soo magacaabo guddiga doorashooyinka galmudug in la soo xulo deegaanada dowlad goboleedka galmudug oo 4 sano ee la soo dhaafay uu hareeyay khilaaf siyaasadeed iyo sidoo kale dib u dhac balaaran ayaa la filayaa in doorashadan ay noqoto mid wax badan ka bedesho siyaasadda deegaanada galmudug waxaana shacabka galmudug ku hanweeyeen in maamulka cusub ee galmudug loo dhisi doonaa oo wax badan ka qaban doono arrimaha deegaanada galmudug sida ammaanka iyo horumarada bulshada cali xasan barqadle cali gaab wararka Shabeelle galmudug aad buu u mahadsan yahay cali markana war hadda soo kordhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray shacabka iyo madaxweynaha dalkaasi Djibouti kadib markii uu geeriyooday ruux ka mid ah qoyska madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wariyahayaga Guuleed Cumar Xasan ayaa warbixintaasi soo jeedinaya fariintan tacsida oo ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya ayaa ugu horeen lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo dhambaal u diray walaalkiisa mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka aan walaalaha nahne ee Djibouti ayaa uga tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay marxuum Saad Cumar Geelle waxaana soo gaaray warka naxdinta leh ee dhimashada marxuumka oo la dhashay walaalkeen Maxamed waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaan dawladda qoyska marxuumka iyo guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Djibouti aan walaalaha nahnay u direynaa tacsi tiiraanyo leh madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaana marxuum Saad Cumar Geelle Allah uga baryay in uu dambi dhaafo kuna abaalmariyo jannooyinkiisa isagoo qoyskiisa iyo guud ahaanba shacabka reer Djibouti u rajeeyay samir iyo iimaan dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay uga qayb galaysaa dalkaasi Sacuudiga shir ka dhacaya wariyahayaga Jaamac Maxamed Saalax ayaa warbixintaasi isha soo mariyay shirweynaha horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee wadamada iskaashiga islaamka ayaa ka dhacay magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga shirkan ayaa dawladda Soomaaliya waxa ku matalayay mas'uuliyiin sarsare oo ugu horeeyo agaasimaha waaxda hidaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo ay shirkaasi ku heliyaan kusimaha ergada joogtada ah ee dawladda federaalka Soomaaliya u fadhiya iskaashiga islaamka mudane Cabdiraxmaan Cismaan Cilmi iyo xogayaha koowaad ee ergeyga joogtada Maxamuud Cumar Jawle muhiimadda shirweynahan ayaa ah sidii dawladaha ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta dhaqanka muslimiinta iyo in la dhaqan geliyo ahmiyadda hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka waxaa xusid mudan shirweynahan ayaa waxa uu daba socdaa talooyinkii iyo go'aanadii ka soo baxay shir madaxeedkii wadamada islaamka oo 27kii bishii May ee sanadkan ka dhacay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama waxaana shirkaasi dawladda Soomaaliya uga qayb galay mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Jaamac Maxamed Saalax oo warbixintaasi noo soo jeedinayay markana furitaanka kala fadhigii baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa dib u dhacay wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya inuu baaqday mid ka mid ah kala fadhiga baarlamaanka maamulkaasi oo maanta qorshuhu ahaa in ay daah furaan gudoonada baarlamaanada Soomaaliya iyo Djibouti oo shalay gaaray Baydhabo wararka ka imaanaya magaaladaasi ayaa sidoo kale sheegaya in ujeedka baaqashada uu yahay xildhibaanada Koonfur Galbeed oo uu gabaabsi ka yahay mudaxileedka uu dastuurku u ogol yahay maadaama 60 cisho oo kaliya ay ka hartay waqtigooda
warar hoose ayaa sheegaya in la go-aansaday furitaanka kala fadhigan in lala sugo baarlamaanka cusub ee lasoo dhisi doono. maamulka koonfur galbeed ayaa dhowaan gudageli doona soo xulista xubnahaasi baarlamaanka. dhinaca kale labada guddoomiye ee baarlamaanada Soomaaliya iyo Djibouti oo xalay ku hoyday magaalada Baydhabo ayaa kulamo kula yeeshay halkaasi madaxda koonfur galbeed. ugu dambeyntiina maalinta berri ah ayaa lagu wadaa guddoomiyaha baarlamaanka Djibouti oo booqasho ku jooga Soomaaliya in uu Muqdisho uga qayb galo furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. halka wararkaasi dhageystayaal duhurnimo aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka aysan ishortaagi doonin Turkishka oo la filayo inay weeraraan Kurdishka Suuriya. hase yeeshee waxa uu ku hanjabay in uu burburin doono dhaqaalaha Turkiga haddii ay ku fogaadaan.